Ra'iisul Wasaarihii hore Israa'iil Ehud Olmert ayaa ku baaqay in Israa'iil ay isdhiibto, wuxuuna qirayaa in militariga Israa'iil ay ku jabeen dagaalka daba dheeraaday ee Gaza ka soconaya. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi sidan: Israa'iil waa inay isdhiibto sababtoo ah Xamaas muddo yar ayay inooga dishay askar ka badan 1,000 oo aynu ku dhaaran jiray. Intaas dhimasho iyo halaag ka badan ma daawan karo. In laga adkaado Xamaas waa waxaan macquul ahayn, sidaas darteed Israa'iil waa inay joojiso soo afjarto dagaalka Gaza, ayna soo celiso maxaabiista Israa'iil laga haysto. Xaqiiqdii ciidankeenu wuu ku jabay dagaalka. Niyad jabka iyo quusta ay askartu dareemayso ayaa khatar kale ah. Wax kasta ayaana laga filan karaa askar xaaladahan adag ku jira, waxaana mas'uuliyadda qaadanaya Netanyahu iyo mas'uul kasta oo xaqiiqda u sheegi waayay. Xaaladdan adag dartiis inay Israa'iil si xeeladaysan isu dhiibto ceeb ma aha, oo ay mowqifkeeda ka tanaasusho si looga hortago masiibo weyn oo ah in Israa'iil lagu dhibaateeyo daciifnimada awooddeeda militari oo la ogaaday, taasoo ah khatar kale oo ay arkayaan kuwa ina ku xeeran Iiraan iyo Xisbullah. Rajada laga qabay in si buuxda loo ciribtiro Xamaas ayaa ahayd riyo aan dhab noqon karayn. Laga soo bilaabo markii uu Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ku dhawaaqay tirtirista Xamaas inay tahay hadafka ugu weyn ee dagaalka. Isla waqtigaas waxa uu caddeyd qof kasta oo ka fikiray arrinka ah burburinta Xamaas ay ahayd fikir hami ah, laakiinse waxaa la ogaa inaan Xamaas ciidan ahaan loo burburin karayn haddii wax kasta la sameeyo. Sirdoonkeenu inuu ogaan kari waayey weerarkii 7 Oktoobar iyo godadka dhulka hoostiisa ay Xamaas ka qodatay ayaa inoogu filan inaan ka cabir qaadanno. Tabarteenu inta ay la eg tahay sax ma ahayn markiiba tallaabo militari inaynu qaadno. In Xamaas laga adkaado wax fudud maaha. Waxa ka horreysa masiibo weyn. Dabcan Netanyahu wuu ogaa markii horeba in hadalladiisu aanay sal iyo raatoona lahayn, ugu dambayntiina uu ku burburi doono xaqiiqda dhabta ah ee militari iyo bini'aadannimo, taas oo ku qasbi karta Israa'iil inay gaarto halka ugu dambaysay ay wakhtigan marayso oo ay dunidu ka soo horjeesatay. Wakhtigiina hadda waa la joogaa. In Xamaas laga adkaado ayaa weli ah mid aad u fog oo aan suuroobayn. welina Israa'iil ma gaarin heerkii ay xakamayn kartay jadwalka dagaalka socda iyo waxa uu ku dhammaan karo. Waa inaan filannaa maalmo adag oo soo socda, iyadoo ay weli sii kordhayaan tirada askarta dhimanaya ee Israa'iil maalin kasta iyo muuqaalada xanuunka badan ee burburka ka socda Gaza. Arrimahaas ayaa mugdi weyn gelinaya dowladda Israa'iil, isla markaana wiiqaysa taageerada iyo dulqaadkii ay inoo hayeen waddamada aan saaxiibada nahay oo wejigabax la kulmayo wakhtigan. Haddaba maxaynu samaynaa si Israa'iil halaag looga badbaadiyo? Waxaan u malaynayaa in la joogo wakhtigii Israa'iil muujin lahayd inay diyaar u tahay inay joojiso dagaalka. Haa, Netanyahu, jooji dagaalka. Lama rabo xabad joojin keliya ama in si ku meel gaar ah dagaalka loo joojiyo 2 maalin, 3 maalin ama 4 maalmood. laakiin xalku waa in gebi ahaanba Israa'iil ay joojiso dagaalka oo ay soo afjarto. Kadibna waa inay Israa'iil soo ceshato dadka laga haysto, inta nool iyo kuwa dhintay meydadkoodaba. Haddaynu sugno wakhti dheer, maxaabiista Israa'iil hadda nool ayaa dhiman doona. Haddaynu fursad haysannaa, dagaalka ha la joojiyo si loo badbaadiyo nolosha muwaadiniinteenna. Joojinta dagaalku waa in shuruud looga dhigaa Xamaas inay soo dayso dhammaan maxaabiisteenna iyo meydadka dadka dhintay dhammaantood intay Xamaas gacanta ku haysay sanadihii u dambeysay. Sidoo kale Israa'iil waa inay sii dayso dhammaan maxaabiista ay Xamaas haysato. Kadib Israa'iil waa inay ciidankeeda ka soo saarto deegaanada Falastiin, isla markaana waa inay Israa'iil dunida u caddayso inay wada xaajood la gelayso Falastiiniyiinta oo ku saabsan mustaqbalka marinka Gaza, iyada oo Masar ay qaadanayso door dhexdhexaadina. Hawsha dhexdhexaadinta Xamaas iyo Israa'iil, dalka Masar ayaa ku habboon, iyada ayaana daacad ka ah,
laakiinse Israa'iil ha ka digtoonaato dhexdhexaadinta dalka Qatar. Suurtagal ma aha in fashil lagu qariyo dacaayado aan soconayn, inkasta oo dhacdooyinkii 7 Oktoobar ay weli ku jiraan xusuusta. haddana Netanyahu maanta cudurdaar ma haysto, waxaa la joogaa albaabkii u dambeeyey. Netanyahu wuxuu islahaa xaqiiqda qari, isagoo cabsanaya ayuu ka been sheegay tirada halyeeyada dagaalka inooga dhintay ayuu ku qiyaasay 600 oo askari, laakiinse tiradu waa ay ka badan tahay inta uu sheegay, waxayna kor u dhaafayaan 2,000 sida ay sheegtay hay'adda NSM. Ra'iisul Wasaare Netanyahu ha iska daayo cabsida iyo walwalka uu ka qabo mustaqbalkiisa siyaasadeed, sababtoo ah dagaalka oo sii socda waa halaag, waxaana ku gubanaya aqoonsiga Israa'iil. kaasina waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii Israa'iil Ehud Olmert, kaasoo ahaa ra'iisul wasaarihii 12aad ee soo maray Israa'iil, wuxuuna xilka hayay intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2009.